laba dagaal oo wada qorshaysan oo wada socota ay rabta qawaaristu inay ku qabsato Daaru Nimco iyo meesha la Xardheere. Daaru Nimco xogtooda la helay dibaa looga baxa. Xardheere laakiin raggii jooga kama aysan bixin way ka hortageen. Waxaan rabaa Daaru Nimco waxa ka dhacay inaad dul istaago. Xardheerena horan kugu soo sheegay. Daaru Nimco meesha la yiraahdo markii xogtooda la helay qaraxyadeedii waxay wateen la ogaadaa dib looga baxa. Hadalkayga si fiican u dhuuxa. وعدسانيا برنامج كان شير كراي عندنا كمان زور جيدو هذا الدجالك ما كان اللي حينيو دور جاه كمان دقيو لكن واحد ربع أنا أدرس استعدادات كسوماليات سيدا أي واحد العين دارنا معه دي بقى لوجا بحيمك دي بلوجا على الديار دي اعتمد إنما كي خواريستا باور كقرح حكومة مال الله يكون فتن الدربية وعندنا تشوف تشيكا لوشدا ولا وذا لاي ان meydkooda daan nimco waa daadsan yahay yakii ciidamadii ugu tagay meesha oo jooga bal hadalkii u fiirso Xardheere 7 kiiloomitir waa meesha lagu dagaalamay airportka agtiisa weey balaagta Faarax Adani waxa siyaa lagu dhihin 7 kiiloomitir oo Xardheere dagaalka ilaa shalo dhan ka socday waxa dagaalamayay waa raggii joogay kala saari maayaan haddana way isku muuqdaan tabtii shala loo dagaalamay loo kala hoyday maxay dawladdu u diiday inay taqayso yaa lagu xumeynaya dadka ma kala fiican ma ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa beelaha kala fiican ma qolo gooniya diyaaradda ay leedahay ma qolo gooniya wax loo duqeeya waa waxyaalaha isweydiinay sababtoo ah shala dagaalka ka dhacay Xardheere dagaal wuxuu ahaa socday muddo saacada oo tiro badan qawaariista waxa uga dhintay ninkii dhamaa oo hogaaminaya madaxa hogaamiyihii madaxa howlgelinta mudug oo dhan uga dhintay waxa la yiraahdaa Maxamed Cusmaan عروشة اللي هذا وحوها نن عيرو حسن سما دورتا محمد عثمان عروشة اللي هذا وانكي مدحي جمعها هو الجرينت مدق ودن واي شلو كنت تدقال كاس لا ومركي ورا نقضي كبعد انه كو غيريو ميد كيس ماشي يلا سوق وقاعد جوله اللي يراد اوكي دولته maxay u taqiyay marka waa isweydiinaya ilaa hadeertaan waa bara dad gooniyo mid diyaaradu leedahay ciidan gooniyo mid diyaarad dul taaganta taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed Xardheere waa kuwa 7 kiiloomitir ilaa hadda la isku hor fadhiyo gurmad uma baahna miya rag shalo dhan dagaalamayay oo ilaa inta hadda tan difaac ku jira oo qawaariista ag joogto suuga ku dagaalamay suuga la soo baxay maxay diyaaradu u tagway waxyaalaha isweydiinaya weeye talaan raba markii soo jeedso saakay talaan soo jeedinay waxay ila muuqataa in walba dhulkaaga difaacay ila muuqataa dawladda Soomaaliyeed ما أهان وحسان سمعيني دولة سوماليين صور كذا أو حتى صور كان وجهنا ما بحكر تصور رمنا عاصة دت كود الدفاع عنها يا وجهنا دت كلامنا اللي يعي أنا وجهنا أنا حقيقة هون شيء وصومنا قفنا نوقف مرة هدي حر أو أي سوق شلا كسوة رتبان إلا حتى أي برت شلا كنت قالمان أي فرديان أو الإصهار فردي أو أنت سويله أو قالي أنا كل ما تي إلا حتى ترتنا دولة جرمنا أيسو قدرن عيدنا أيسو قدرن ديارنا أيسو قدرن waxaan u arkaa nin walba dhulkaaga difaaco nimanka halkaas jooga saak waxaan leeyahay mar hadda dhulkiina difaacan kartiin oo awoodiin inaad qawaarij ka difaacatiin difaacda qof bila aadan ah baryinina ilaahay subxaanahu wa ta'aala talada u dhiibta sida aad kartida shar u dagaalanteen oo dagaalama wixii dhintana waa la yaqaan warigiisba waa dhiman jira naxariis janna Allah ka waraabi wasifa uu ku dhiman lahaa oo ka fiican mid qawaarijtana ma jirto dagaalka shalay ay rabeen si bareera inay ugu wada qabsadaan oo wada jira oo la qorsheeyay Xardheere iyo Daaru Nimco wuu ka fashilmay qawaariistii Daaru Nimco sida la isoo xaqiijiyay oo hadda aan ogahay warka jika laga dhigay ay ka dhamaa diyaarada ka dhigtay waliba Bayraktaar aan dhihi karaa diyaarad saas u gashay waa looga baxay magaalada xogtooda la helay diyaaradu markii jika ka dhigtana dib loogu laabtay magaalada waa la joogaa sababtoo meel joogi karaan ma waa lagu duqeeyay ibra looga dhigay maxaa diiday marka Xardheere dagaal ama dhacay oo bareer oo raganimo wiilal u bareereen maxaa dhacay ilaa xalay ilaa maanta inay barti fadhiyaan ay wali u hawoonayaan Xardheere maxaa dhacay dawladda Soomaaliya jawaabtaas aan uga fadhinaa haddii 24 saac gudahood waa u fogeeyay waliba ay jawaabtaas ku bixin weydo nin walba gobolkiisa magaaladiisa tuuladiisa u tashan doona oo wallahi oo billahi runta sheegay aniga taliyaha ciidanka militariga Soomaaliyeed hadduu 24 saac gudahood uga jawaabi waayo nimanka Xardheere raba inay la wareegaan xoog iyo awood kula wareegaan raba haduu uga jawaabi waayo hadee waa hadal cad oo tuuladaada u tasha dawladna meeshaas kama jirtayaan dadka been loo sheegay markaas nool baa tuuladiisu difaacan doona
aad iyo aad u mahadsantiin